asxaabta ku soo dhawaada sheekadii xiisaha lahayd ee ana iin qabo haddana eedan qaybtii hore waxa ay inoo maraysay anwar ma ahayn mid sidaa uga quusta ereyga u jilicsan yahay ayuu ku baryatoomayay kelmadba kelmada ay ka qiiro badan tahayne waa uu ku calaacalaya wax walba oo islahaa waa ay ku soo dabci kartaane waa uu ku hadaaqay laakiin weli taasi ma noqon mid ku finnaata sidii uu u daba socday ayayna ku soo laabatay gurigeeda markaasoo ay danta ku qasabtay inuu isaga haro waxa uu iska soo aaday xaafadiisii asaga oo murugaysan talow maxay ilaa heerka muna ugu galaysaa wiilka maxaase ka soo bixi doona kulanka loo ballansan yahay ee nuur iyo gabadhaha kuna soo dhawaada qaybtii 24aad wuxuu xaalku sidaa iska ahaadaba waxaa la gaaray xilligii ballanta waqti goor hore ah ayayna muna iska sii xaadirisay gurigii saaxiibtii Sumaya ayagoo si wadajir ah halka ugu sugayay nuur oo ay wada ballansanaayeen wax yar kadib ayuu nuur asaguna yimid laakiin waxa uu arkay muna oo goobta kula sugan Sumaya waa uu yara naxay laakiin uma uusan muujin oo waa uu wada salaamay si laab furan ayayna salaantii uga qaadeen Sumaya oo hadalka ku horeysay ayaana nuur u sheegtay in markii horeba ay ayada muna ka soo codsatay ayna doonaysay inay uga argudo nuur ayaa hadalka ka dhex galay asagoo weydiiyay waxa uu yahay argudsiga iyo waxa uu galabsada ee laga gooynayo Sumaya ayaa ugu jawaabtay in uusan wax qalad ah lahayn balse ay fikrad qaldan ka aaminsaneed muna sidaana ay ayada ugu soo adeegsatay si ay dhulka ula jarto balse markii ay ogaatay daacadnimadiisa iyo inuu bari ka yahay dhammaan eedeemihii ay muna uga shakisay ay garawaaqsatay in ay runta u bayaaniso si wax walba ay halkan uga dhammaadaan nuur ayaa intaa kadib u sheegay in weligiisaba uu ka talin jiray wanaageeda balse ay ayada lugaheeda ku doonan jirtay lugooyada haba ahaatee ay asagana mar waliba ku aflagaadeen jirtay dembi uusan wax lug ah ku lahayn balse ay alle mahadii tahay hadiiba ay markaas soo ogaatay wax waliba muna oo dhankeeda ka soo gashay sheekada ayaa nuur u sheegtay in uu ka raali noqdo maadaama uu indho tiray jacaylkii anwar si qaldana ay mar waliba u fakiri jirtay wax walibana ay moodi jirtay in ay asaga ka soo bilowdaan balse ay maanta ka qoomamaynayso in ay u roonayd kii u darnaa kii wanaajinayayna ay iska riixaysay balse ay tani waayo aragnimo ugu filan tahay ugu dambeynna waxa ay ka raali gelisay wax walba oo ay u geysatay nuur ayaa si aan saluug lahayn uga aqbalay raaligelinta una sheegay in ay shaydaanka uu duufsaday balse ay maanta tahay qof wadadii saxda ahayd ku taagan waxa uuna u sheegay mar kale in fiidiyowga ay beenta moodaysayna uu run yahay islamarkaana uu asaga gacantiisa uga tiray teelkii anwar haddii uusan sidaa yeeli lahayna ay maanta ahaan lahayd qof aan weji siin karin bulshada ay la nooshahay balse uu weli fiidiyowgaasi uusan sida ku baabi'in maadaama uu asagu hayo koobiga fiidiyowgaas uuna reebay in marka ay marxalada meel xun gaarta uu isaga difaaco ayada maadaama ay goor horeba u sheegtay in ay ku soo maqan tahay laakiin aan maanta loo baahnayn maadaama ay heshiiyeen wax xumaan ahna uusan u qabin nuur ayaa intaa kadib la soo baxay teelkiisa in cabaar ah oo uu eegay kadib ayuu muna gacanta ka saaray una sheegay in fiidiyowga ay halkaa ka eegto gacanteedana ay ku tirtirto muna ayaa si degdeg ah u soo qabatay teelka islamarkaana furtay fiidiyowga ilma ayaana indhaheedii ka soo daadatay maadaama ay aragtay sida foosha xun ee uu anwar ula dhaqmay inta ay gariirtay ayuuna teelkii dhulka uga dhacay maskax ahaana waxa ay noqotay qof aan fadhiyin ooyin ayayna afka furatay ayadoo ciiloonaysa Sumaya ayaana garabka ka soo qabatay ayadoo isku day
dayeysay in ay aamusiiso Nuur ayayna ka codsatay inuu tiro fiidiyowga laakiin Nuur ayaa diiday inuu tiro fiidiyowga una sheegay Sumaya in qof aan ayada ahayn uusan tiri doonin si ay ugu qanacdo in fiidiyowga uu halka ku dhamaaday arrimihiisa kalsooni ay halka uga hesho Muna oo wali iska ilmeynaysa ayaana inta is celin weyday ku boodi Nuur laabtiisana ku dul oysay ayadoo aad uga mahad celinaysa abaalka aan marnaba la ilaabi karin ee uu u geystay iyo sida uu u wanaajiyay Nuur ayaana asagoo dajinaya ugu laab qaboojiyay inay tahay qof xagiisa qaali ku ah sharafteedana ay xagiisa ka tahay wax aan sahlaneyn sida awgeedna ay iska samirto wixii dhici lahaa uun ay dhaceen arrintaana ay ayaga uun ku koobnaan doonto Muna oo in yar oo deganaan ah dareemaysa ayaana soo qabatay teelkii ugu dambeynna tirtirtay fiidiyowga Sumaya oo inta indhaha uun ka daawanaysay sida ay wax u socdaan ayaana aad ugu mahad celisay Nuur una sheegtay inuu sameeyay ficilkan ugu wanaagsan ee uu wiil gabar u sameeyay aysan garanayn qaab ay ugu mahad celiyaan xitaa haddii ay kun jeer ku celceliyaan ereyga mahad celinta Nuur ayaana u in aan loo baahnayn wax mahad celin ah keliyana ay muhiim tahay inay cashar ka qaadato waxa ku dhacay taxadarkana ay badiso maadaama ay af libaax si dirqi ah uga soo baxsatay Muna ayaana u sheegtay in aysan dib dambe ugu dhici doonin shabaqa Anwar isla markaana ay gebi ahaantiiba halka ku ilaabi doonto maadaama aysan xasuustiisa wax aan iil iyo caloolyow ahaynba aysan u soo kordhinayn Nuur ayaana u sheegay in haddii ay weli jeceshahay uu Anwar yahay qof ayada u qalma in ficilkaas xun uu ku sameeyayna ay u geysay uqdad uu ayada u qaaday darteed sidaa awgeedna ay mustaqbal ka dhigan karto haddii ay wax isla meel dhigaan Muna ayaana si adag isaga diiday soo jeedintaasi ayadoo u sheegtay in aysan isku haleyn karin nin haatanba sidan u galay isla markaana uu yahay mid naaga jecel oo haasaawe badan sidaa awgeedna uusan ahayn mid ayada ku habboon jaceylkiisuna uuba ka dhammaaday ayagoo weli sidaa u wada fadhiya ayuu ninkii Anwar ahaa soo wacay teelkii Nuur balse waxa gacanta ku hayay teelka Muna maadaama ay fiidiyowga ka tirtiraysay isla markiiba ay aragtay inuu asaga yahay ayayna u dhiibtay Nuur kaasoo asna ka qabtay talow muxuu doonayaa inuu kala hadlo la soco qaybta xigta insha Allah like comment share